السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان واحد كلا سعتان راديو بالبارك سيتي سوقان وعد كلا سعون دونتان أم بعد كلا حيري دونتان قيبيسا كدوان فيسبوك أم يوتيوب كا. هل كان واحد برنامج إلى دهنا السومالي كجبرير يعني وعليك الجيئة وحمات برنامج كمتين نوعه أقويهن عمر وبري وكنا لطلق الجرمالكا يا أقويهن حسين بوح وكنا عريق إنجليز كمجال لندن. barnaamijka maanta aan ka hadlayno waa waaqiga iyo dhibaatada ka jirto deegaanada Soomaaliyeed ama gobolka ama kilka Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka City dhibaatooyinkan badan ee hadda soo noqnoqday ayaa ka hadlaynaa waxaan mikrofoonka ku wareejinayaa Maalika Jibriil وضعتها هنا بالعلي كالجي وحان هذه أدبض ما تقطع هكذا وراك بربارتي في سوقان أتكلم عطان آلاف محايا هيدي baraha bulshada Facebook iyo YouTube-ka waxa aan maanta ka hadlaynay waxa weeyaan dhibaatooyinka iyo maxay caqabadaha ay ku hayaan dawladda dhexe ee federaalka Itoobiya ay ku hayso deegaanka Soomaalida Siiba City waxa la yiri mid maxaa u dambeeyay kala siido waxa maanta saaka subaxii lagu dilay laba nin oo maxay ahaydey reebaadiya oo intay magaalada Garbaciise ay daraashada iyo safar iyo wuxuu soo doortay gobolka markuu ugu dhacay ay afureen kadib halkii ka socdaalay ayaa labadii nin waa la dilay wax markii meel aan ka sii dheereyn Garbaciise oo 1 kiiloomitir jirta ayaa lagu dilay waxaana dilay boolis federaalkii Itoobiya dishay halkii markii lagu yaacayna labadii nin waa meyd waxaana maxay ahayd gacantaas gacan ka dambeeyay oo ragaa dilay waa booliska federaalka ah maxay ahayd Garbaciise ayaa dilay dhibaatooyinkaas oo soo noqnoqday oo mar ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn ayaa horta City ka taagan waad ogtiin City maxay ahayd maanta galbeedka City wuxuu dagaal kula jira deegaanka Cafarta oo dawladeedii iyo boolis maxay ahayd liu booliskii Cafarta iyo Tigreegi aynan u kala harin ayaa waliba arkaysaan inuu maxay ahayd federaalku uu qabanayo horta caqabadahaas oo miilan baa meesha jirta midda kalena aan igu daro sheekada waxa weeyaan hadalka aan igu daro dawladda Itoobiya Soomaalida Itoobiya degan inay Itoobiya yihiin uma haystaan anu sidaan filayo laano dhibaatooyin fara badan bay ku hayaan Itoobiyaanka dawladda dhexe ay ku haysaa deegaanka Soomaalida ay ku haysaa iyadoon u kala eegaynin maxay ahayd degmo iyadoon u kala eegay City iyo god iyadoon u kala eegaynin iyadoon deglabiya digdiga u kala eegaynin dhibaatooyin fara badan bay ku haysaa saddex isha ka hor dhibaatadii ka dhacday gardabana waa la socoteen maxay ahayd dadka booliska ku laayay dad waliba guryahoodii laga boobayo guryahoodii iyadoo la boobayo oo maxay ahayd beerahoodii la boobayo oo dhulkoodii la boobayo ayaa dilmana loogu daray waxaasoo dhan baan maanta rabnaa inaan ka hadalno waxaa su-aashaydu waxay tahay aan ku horreysiiyo Cumar Waaberi oo dhibaatadaas halkaa ka dhacaysa iyo maxay ahayd caqabadaha faraha badan iska soo daba noqonaya bal adiguna aragtidaada ka dhiibo su-aalba mayna waa aragti waxaan ku weydiinaya aragtidaadu maxay tahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتهم أخيارتا برنامج كداتهين نساء مالكة جبريل على كالبجية إيو نكا صاحبك غالق حسين لما انتوا سلامتين هورتا اللبا نقرأ سارينا وارون دولة إيتوبيا إيادو دولكن waxay ku haysaa mataqaanaa waxa la yiraahdo son war oo yani dhul dagaal inuu yahay baa u qoran de markay halka sidaas arintu tahayna waxa weeye xisaabtankii baa meesha ka baxaya la xisaabtamaya iyada iyo wixii u shaqeeyay la xisaabtamaya baa ka baxaya meeshii sida la ajligeed aniga ray ahaantay ama yani baasha markaan isku celcelino sida u socoto waxaan u malaynayaa dadkan ama gobolka City ha joogaan ama dawlad deegaanka ha joogaan yaan wali gaarsiisanayn heerkii laga rabay inay ku difaacaan ummadan ay maamulka u hayaan maxaa yeelay daraad
waan arkaynay wixii ka dhacay magaalada Dirdhaba magaalada Dirdhabana ma aha magaalo xuduud ku taala oo maaragtaasay kontrabaa iyo wax lagu marmarsiyooday aanu meeshaas gali karin waa la ogyahay yacni waxay u muuqataa waa wax dawladda federaalka iyo nimankan dee kala kanyaha la yiraahdo dhulka joogi ay isla og yihiin ayay u eg tahay taasna dee haddaanan xisaabtan jirin oo qofka askarigii dembiga geystay ama dadka shacabka yacni adduunyada sharcigeega qofku markuu yacni ama dawladii ay wax disho ama qof shacabi uu wax dilo dee maxkamadaha jira lagu kala baxo maxkamadihii baa meeshan ka maqan iyo dadkii yacni dhulkan maamulayay oo aan awood u lahayn inay yacni karti ay ku horjoogsadaan waxaas aanay muuqan bayna tusaysaa taasi oo yacni ciidankii la keenaba yacni ninkaa ciidanka haysta uuna wuxuu doona ka yeelayo ha yaraato ha badnaato intuu doono isagu intuu layn karana uu layn karo intuu yacni dhaafi karana uu dhaafi karo taas bay u eg tahay taasi ta kale waxa weeye tan xaggan galbeedka dee galbeedku isagu tiradaba uguma jiro hadday dawlad Soomaaliyeed iyo hadday dawlad maaragtaasay gobolka City ay tahayba dadkaas waxaad moodaa in la dayacay oo dadkii mas-uuliyiinta ahaa ee magacooga lahaayay ay aad iyo aad u dayaceen dee iyadna waxay ka mid tahay uun duruufaha haysta dhulka oo yacni maanta Soomaali dawlad deegaan ahaan marka la eego hal la kala hooseeyo oo hal la kala yacni haloo kala bato waa laga siman yahaan aan u dhihi karaa min gobolka Daawo ilaa gobolka City dhibaataduna ummadoo dhan bay haysaa kolleyna dee dawlad deegaanku waxna way dhihi kartaa waxna way qaban kartaa laakiin awood ay heer yacni ugu jawaabto ciidankan muxuu waxaan u leynayaa oo waxaan u samaynayaa weli iyagu malaan u malaynayaa taladuna waxay ka go'daa baan u maleeyaa dee nimankan jaranada harar fadhiyo cid ka daba hadlaysaba aanay jirin ayaan u malaynayaa inay taladu ka go'do kolleyna dee waa wax u baahan in maaragtaasi karti loo yeesho oo aqoonteedii loo yeesho oo yacni lagula xisaabtamo hay-adaha dawladda federaalka Ethiopia waxa ay samaynayaan ama hay-adaha gobol ahaaneed wixii ay samaynayaan in lagula xisaabtamo oo yacni la iskaga hadin ayaan anigu odhan lahaa waana ka baxay hadalka hadsan tahay Cumar waa bari aad baad u maasantay adeer waa runtaayoo maxay haddaan lala xisaabtamayn oo de maxay waxaan ku dhaceen oo leeyihiin dibteeday leedahay waana waxyaabaha maanta maxay aan oran karno dawladda deegaanka Soomaalida ayaa maxay ahayday waajibkaasi saaran yahay inay meesha ay maxay ahayday City galbeedkeeda ka gaadhay ilaa inay iyadu mas'uul ka tahay wixii dhibaato ka dhacana inay iyadu maxay ahayday xalkii iyo sidii looga hortagi lahaa ay raadiso aad baad u mahadsantahay Cumar waa bari waxaan hadda maxay ahayday makarafoonka u wareejinayaa aniga oo sii tixraacaya adiguna fikirkaaga maxaad ku oran lahayd Hussein kusoo dhaweynada makarafoonka aad baad umahadsan tahay walaashay Malika iyo walaalkay Cali oo noo daadihinaya barnaamijkan City Sugar ay soo diyaariso adeecada caanka ee City Sugar oo alaaba laga dhageysto baraha maaragtay bulshada ay maaragtay ku kulanto Facebook meelo badan iyo walaalkay aqooyaan waa bari oo sagna nagala qayb galiyay oo aniga isaga nagu soo cusubay walaalay nagu soo cusubay waxaan sidoo kale uga faa'iideysanayaa fursadan bil barakeysan baan ku jirnay bishii Ramadaan waxaan sidaas la mid ah aan bulshada muslimka iyo inta iyo kuwa Soomaalida asiiba dawlad deegaanka Soomaalida
ugu maaragtay leeyahay dhammaantood Ramadan Mubarak markaan intaan ku kaga soo gudbo xaraarteeda hore haddaan aniguna fikirkayga aan walaalaha la soo wadaago iyo dhagaystayaasha City Sugaarba horta waxay u baahan tahay in la ogaado shacab ahaan shacabka Soomaalidu maalika carab ku dhifatay Soomaalidu jinsiyadda Soomaalida iyo dowladnimada Ethiopia maxay wadaagaan horta maxay kala aaminsan yihiin maxaa u dhaxeeya maxaa ay halkee bay kala taagan yihiin horta taas waa in dadka Soomaalida dhammaanteed City kaliya ma Soomaalida dowlad deegaanka Soomaalida ama gobolka Soomaalida ee gobolka labaad ugu ballaaran wadankaas Ethiopia in ay horta ogaadaan in horta la helo ayaa muhiim ah moogta marka waxani wax imika bilaabmay ma aha waa wax ilaa iyo taariikh ahaan dadku badidoodu waa wada ognahay dadkeenu badidoodu wada ogyihiin marka waxani wax imika wax cusub ma aha yani haddaan maalikay ku xasuusiyo saddex isha ka hor bay suman waxaan dhaceen saddex isha ka hor waa tii dirdhaba maxaa yeelay guryihii iyo beerihii dadkii halkaa degan ay lahaayeen Soomaalidu waa kuwii doonayay inuu xoog ku qaataan Oromadu ka horna waxa maalinta shalay saddex wixii labada dhalinyarada ah xoolo dadkii dukaan waa saaka taas waxa ku horeeyay waa wax joogta ah waxani oo ma aragtay oo imika aanan bilaamin laakiin qarni malaha soo socday oo haddana aan joogsan doonin ilaa ay horta Soomaalidu pose inta la galo Soomaalida ee dalkaas ku nool inay pose galaan wax iska weydiiyaan war anagu maxaa noo dhaxay in wax waa federal baa leeyahay mugta dalku waa federal marka federalkii qayb ma ka nahay mise kama nihi maxaan wada leenahay oo ku bahuuray way caddahay waxa cadba in aanan inayba Soomaalidu ay ka tahay second class bal waxa ma dhihi karaa madaxa fifth class second class ita ma loo ogolaan malaynaya laakiin waa magacuyaal uuna meeshii naam ay ka joogaan u balay laakiin waxay xisaabsan waa in ay dadka horta taa aaminaan si ay waxaan u istaagaan dadka shacabka dalka ku nool dhulka inta la ku nool waa in horta ay taas la isla garto meel la isla dhigo markaas waxa la iska weydiin karaa federaalka inkastoo imika dawladda Ethiopia ay dawlad aynan xasiloon ba ahayn dawlad degan ba ma oo base leh waa dawlad wali transition aad moodinay ku jirto laakiin ma transition keeda ka horba ayadoo xukun military xitaa lagu haysto sidii isku wada mid oo noocay doontaa iyadoo boqortooyo ah sidaas un bay ahayd oo Soomaalidu boss ma ku laha qayb ma ka aha marka Soomaalidu waxa weyn in waxaan oran lahaa waxaan oo dhan waxa ka weynba ma la ogol yahay Soomaalinimada dalka dilka iyo dhaca waxaaba ka horeeyaba waxa weyn waa qayb ma ka tahay dalkan waa inay taas Soomaalidu isweydiiso si ay u badbaado in waxa badbaado waxa la rabo noloshiiba ma lahayo hadda noloshiiba inaad ila aragteen mooyaan waxaan ka hadlaa dadku ay ka hadlayaan waxa weyn war horumarkii iyo maxaan ku rahay noloshii maaragtay dawladnimo iyo sidii loo heli lahaa waxaba ka horeeyaba horta ma lagu ogol yahay meeshii horta qaybna ka tahay mise waxaad ka tahay mala awaal magacuyaal xaggaas baan anigu dhigay marka halkaas aan ka dhaaqan haddaan usoo noqdo shacabka Soomaalida siiba city inkastay Soomaalidu gees ilaa gees dawlad deegaanka Soomaalida ay ka wada siman yihiin dhibaatooyinka haddana ay kala daran yihiin dhibaatooyinku way kala daran iminka deegaanka dhan waxaa laga yaabaa inay hal magaalo ka dhisan tahay oo Jigjiga magaaladii ka horeysay ee ka weyneyd ee ka qadiimsanayd ee Diridhaba ayaa ka liidata
meelaha ugu maaragtay village-ka lagu tilmaamo amba gobollada kale waa wax de maaragtay mustaxiila moogta wax mustaxiila wax maanta inanka Soomaali ahaan waxaa la isweyd maaragtay heerkaas la taagnaado wax aad iyo aad looga xumaado waxaan u malaynayaa maalikay inaan ku dheeraaday waad maasantay inaad laakiin wax la soo koobi kara maaha walaashay maalikay lama soo koobi karo oo maalin iyo maaragtay warbixin ku dhamaan kara maaha laakiin waan iska joognaa waan isla eegnaa wixii kale su'aal inaad aad baad u mahadsantahay Xuseen Buur halkan waa raadioga barbaarka City soo gaad oo kala socotaan kanaalka maxay ahayd YouTube-ka iyo baraha bulshada waxaan caawa halkan u fadhinaa caqabadaha iyo dhibaatooyinka maxay ahayd gobolka deegaanka Soomaalida haysta Ethiopia dowlad deegaanka Ethiopia Soomaalida Ethiopia waad ogtihiin oo maxay ahayd Ethiopia waxay wax u soo maraan ay wax uga soo degaan waa dhulka Soomaaliyeed bay soo maraan maxay ahayd wadooyinka hadday Mombasa dikada Mombasa wixii ka soo degay wuxuu soo maraa mooyaalo soo maraa dikada Berbera wixii ka soo degaana wuxuu soo maraa Wajaale dikada Jabuuti wixii ka soo degaana Dirdhaba iyo wuxuu soo maraa maxay ahayd Dooyar buu soo maraa ilaa halkaas uu ka maraa maxay ahayd ilaa ka tagaa Addis Ababa iyadoo oo ay deegaanka Soomaalidu ay tahay gurigii iyo doonigii iyo meeshay wax kasta u marayeen badrool hadday tahay dooni hadday tahay maxay ahayd agab hadday tahay meeshay u marayeen dhulka Soomaalida iyadoo tahay oo maxay ahayd 9 bilyan oo lacagta birta laga xareeyo wadooyinkaas sideebay Soomaalidu ula xisaabtami laadahay ay u oran laadahay waa dhulka yagan wadooyinka maraya annakayna soo marayaan nabadgelyo iyo waan iyo maxay ahayd wada shaqayn iyo dalnimo iyo dal wanaag aynu ku wada joogno war markaad markaad haysatid advantage-kaaga waa lagu meel maraa waa lagu gargartaa marka Ethiopia waxa ay rabtaa xaggan Dooyar iyo Dayn dagaalku wuxuu uga socdaa waxa la rabaa wadada madow halka marta in casar gacanta laga geliyo la rabaa inta kalena waxay rabtaa maxay ahayd inay Ethiopia gacanta ku qabato in Oromo ay dejiso in maxar dejiso ay dhulka Soomaalida sida loo wada qaataa la rabaa marka Soomaalidu iyadu mayna fikiraynin maynan wax badan isweydiinaynin ragga leeyahay maxay la caggar iyo nimankan xukuumaddu adiis bay ku sii socdaan adiis waxba kama keenaan adiis wanaag kama keenaan adiis maxay ahayd kirate kama keenaan heshiis kama keenaan saxiixya kama keenaan waardadkayga ammaan hala siin kama keenaan inaad hadalkeena waxba ku sii dheeraanine waxaan rabaa hal maxaa ah waa beriyow hal maxaa hal ah halka maxaad u aragtaa waa beriyow Cumar waa beriyow kusoo dhawo makarafoonka inaad waa mahadsan tahay Naadeer Malika aad iyo aad baad mahadsan tahay hal haddii la rabo xalku iskama yimaadeen waa in taranjarooyin loo maro oo yacni xalka markaad raadinayso wuxuu kaaga baahan yahay inaad bidib iyo naf iyo maal aad u hortid u baahan yahay midda labaad waa runtiin oo Xuseen uu soo sheegay adigu waad soo sheegtay dawladda Ethiopia iyo dawlad deegaanka Soomaalida masjid bay isku yihiin mise waa dhul ay iyadu leedahay sida wadanka dhulweynaha Ethiopia kamid ah halkaas haddaan wax yar ka iftiimino ama ka iftiimiyo horta Soomaalidu waxay tidhaahdaa laba gorgortantay geed kuma wada kulmaan Soomaalidu dhulka inay iyadu leedahay waa biyo kama dhibcaan
laakiin waxa meesha ka maqan يعني هيل ولي أنا هيسن وحوي كرتدي لجو جوسني إن دول كان أذو ولاده ويعني واحد مودا من قبل حدود جيبوتي إلى حدود كينيا dadka wadanka ka shaqeeya ama maamulka dawlad deegaanka Soomaalidu wali inay iyagu awood u haysan inay wixii ay tabanayaan ay miiska saaraan ama wixii ay go'aanayaan ay yani hor dhigaan hay'adaha u qaabilsan wadanka oo waxaad moodaa iyaga meel kale in laga maamulo oo dawladda Itoobiya aanay yani inta yara siyaasadda ka qusaysan ay kala socoto inay iyagu dhulkan leedahay dawlad deegaanku ka tirsan yahay dhulka intaas way ka siman yihiin oo way kala socdaan laakiin maamul markay timaado dhulka iyo maamul markay timaado dad dawlad deegaanka jijiga fadhiyo maamulo dhulka magaalooyinkan ay joogaan iyaga ma maamulaan rag waxa maamula jaranaal ah oo magaalada Harar fadhiya ragga jaranaallada ana dawladda Itoobiya siyaasadeedu waa laba qaybood labada qaybood yani qayb waa qaybta arrimaha dibadda qaybna waa qaybta arrimaha gudaha waxa gobolkan qusayna waa arrimaha gudaha ba hadana laba loo sii kala qaaday oo la leeyahay Ethiopian citizen iyo Ethiopian naval citizen yani native citizen waxa ka dhigan tahay yani Ethiopianka wadan kale iyo kuwa kula nool Soomaalidu marka waxay soo galaysaa kuwa kula nool wadanka Itoobiya soo galaysa marka yani iyagu awood ay kaga hadlaan maamulkan ama dardhabaha joogo ama maaragtaasay jigaha joogo ay kaga hadlaan warqiyamka yaga maxaa halka gaarsiiyay maba haystaan yani reality markaan ka hadalo wali dhulkan waa dhul yani aan dawladda Itoobiya siyaasadeeda faraha ugu jirin laakiin jaranaal ay gacanta ku hayaan jaranaaladuna meel kale ay amar ka qaataan mid kala jirta bacrimiska waxa la yiraahdaa shayga markaad adigu naatiir u markuu shaygu markuu naatiir u baxo iyo markuu bacrimis noqdo duu kala duwan yahay maanta Itoobiya tan hoosteeda ku jirta iska daaya kuwa dibadda ee dawladaha sheegtay ee dariskooga ah gacan bay ku haysaa oo yani aad iyo aad ilaa xad waxa ay go'aan gaadanayaan iyo waxa ay yani feature-ka fog ee soo socda ay ku fikirayaan ducayn aad ay u haysataa oo yani dhan walba way kala socotaa ninku hadduu maaragtaasay talaabadiisu ka horeysana taladiisu way ka horeysaa oo yani sinaba ku gaari mayso waa run Soomaalidu yani dooniga Itoobiya fadhida laakiin dooniga Itoobiya ha fadhida away talada iyo goynay talada cidi goynaysa la qabaa taladu iskama go'do taladu waxay ka go'daa dadka dhulka maamulina waxa weeye waa dad bacrimis lagu keenay bacrimisna maaragtaasay ayaanba kii la doonaba dibadda loo tuuray ayaanba kii la doonana waa la soo gelinaya taasi waa intaas mid saddexaad oo meesha ku jirta dhulka Soomaalida qofku hadii yani ama dawladda federaalka ama ciidamadan dawladda nuucyadeeda kala duwan haday xadad xasuuqaan lagama daba hadlo oo yani cid halka ka dhaqaajisay ma jirto taasna waxay ku tusaysaa meeshan inay ciidan gacanta ku hayaan waayo ciidanku awood gaar ah ma leh laakiin ciidanku maxkamad kama baxsan karaan maxkamadu leeyahay wadan hay-ad kala dambayneed buu leeyahay wadan 20 qof oo goondar lagu dila maanta dawladda cadaaladda u sarreysay u raadisaa 10 qof oo guri lagu gubay baan laga hadleen maaragtaasay inay halkan wax ku noqdeen dad iyo in kale oo xataa wariyayaasha loo diidaya taas maxay ku tusaysaa meeshan yani in aanay jirin dadkii maamulayay aanay capacity looga baahnaa aanay lahayn way jiraan dad yani u ficiltamaya oo yani inay wax qabtaan raba laakiin heerka ay rabaan inay wax ku qabtaan wali ma gaarsiisana
وانا حقيق ويدولكن ودول Soomaaliyeed meeshuu doona ha ahaado ama Ethiopia ku jiro ama ku jiro waayo Ethiopia waa sax weeye sidig baan ku nahay sidigtaasna maalmaha kamida way iska dhamaanaysaa iyaduna intay ku ordaysaba waa inta wax kale kama ordayso Ethiopia waayo maanta Tigray haduu yiraahdo waan baxaya ma bixi karo uu ku qasban yahay Ethiopia amxaara dhulkan anaaba layga haystaa buu ku leeyahay oo uu ku qasban yahay dabuubka iyo soodarka iyo gambeelaha iyo goojaanku sidoo kale way ku qasban yihiin oromana iyadaaba xunduftiijo ninka yacni la diidan yahay inuu nuuxsado waa ninka Soomaaliga ana si korka loogaga joogi karo waa in loogaga joogo nuuxsigaba loo diiday taasna waxay u baahan tahay hay-adihii faraha u duuduubnaa ee lagala xisaabtamayay bal maamulka sare iska daaya bal horta dadkan dhiigooga la xalaashanayo in la joojiyo oo maxkamada loo sameeyo oo yacni ninka askariga ee dadka rasaasta intuu siduu doono ugu laayo iska dul maraya yacni sharci qabta in la horgeeyo dawladda Ethiopia oo dadkan dawlad deegaanka maamulo ay intaas karti la yimaadaan intii ka dambaysa gobolkan gacanta Soomaalida soo gali maayo وانا حقيقي ويقاس يعني مثل قبل وريقا يما المها تتبجيكا كرانايا هبرت مويا لكم نول إلا هبرت دوان لكم نول ويدفان سنتايتاس لكن ميل أي كان واقان أو كهلان تانيتشر ميل أي كان واقان أو أي كهلان تانيتشر تاسنا وحي كان يسا تبرد الرضا مامو كجوغا ميشا دائما وحبق بان كروه وانا كبح هذا الكا وانا سلامتي مركلي aad baad u mahadsan tahay Umar Waabari waxa weeyaan Umar halkan waxa weeyaan raadiyo barbaartiisa soo gaar waxa aan caliyow adiguna maxaad ku darsan lahayd ma sha Allah waxaan aad u hambalyeynaa aan u salaamayaa Ustaad Waabari iyo Ustaad Hussein dhamaantood iyo Malika oo barnaamijka ilada diinaysay anagu كلي واحد بدن كدري مايو لكن لباتوين باجت عيسوه واحد سكوا هيستان أم عيسى هذا إلى هذا الصومالي هذا إلى هذا لك عيسى لك مسؤول ككاعة وهذا نخص هذا هاي إن أنا كباش عيسى هرت لوكينا نخص هيو إن صومالي مركان شيء نقول هارنا وصومالي ولا ما كان لنا لكن دول كنا ما أنت واحد أركيسها صومالي دول كيرا بحري سيستم كي هراء sida maaragtay xoolaha loo leeynayay inay hadda ka baxday ay arintiiba si gaar ay u eegtay oo dad hadlo ama dad mar walba wixii dhacana ka hadla ay leeyihiin laakiin ciisa maanta inayna jirin dad arrimaha ka hadlo maanta waxa loo baahan yahay qof kasta oo ciisa oo xukuumadda ku jiro ama federaalka ku jiro amba ha ku jiro kilka Soomaalida ha ku jiro halka ha joogo jijig ha joogo waxa loo baahan yahay in haddii hal maalin ilmo laga rabaxo amba ilmo oo askari ka dilo amba qof askari uu ka dilo in ay ka hadlaan oo ay miiska maaragtay garaacaan oo yiraahdeen anagu meesha maxaan fadhinaa haddii dadkayga walaalaynay haddii ay tahay imanna wax soconaya habeeraatay ma jirto waayo qofka haddaad noqoto sida xoolaha haddii lagu laayo uunad ka hadli weydid oo shaqaalo adigoo noqotay qof shaqeeya uun lagu danaysa haddaad noqotay dadkii aad meesha u faraysatay wuxuu tirimaysay naftaadina wuxuu tirimaysay wixii qofka gaaray adiga ku gaaray marka waxaan oran lahaa nin walba meesha uu kulley ka soo jeedo Soomaali ahaan waa in uu xoog saaro inuu la xisaabtamo in uu siiro libera loo dilo dowladda dhexna ku xisaabtamo waxa dhacday imika Soomaalidu marka aad sida u eegtid isticmaalkii waqtigii Ingiriiska guumaysanayay Soomaalida aan badku kala qaybinayay sidii uu darbigii dadku u noolaayeen inay Soomaali wali hadda u leeyihiin way wadaniba ahaynba sayn walaalada ay soo sheegeen marka waxa loo baahan yahay runtii in nin walba halka uu joogo uu xoog saaro dadka dhimanayo ee maalin walba la leenayo waxa la leenayo waxa weyn waa magac Soomaaliyeed wax lagu dilay maanta anfartu haddii ay nin askari wax yeeshay disho cid wax ka qaadaysa habeeraad ma jirto cidna wax ma weydiinayso marka ciistuhu iyo Soomaaliduna inay iska noqdaan baa loo baahan yahay
ay mid kaliya noqdaan oo aanan maaragtay Ethiopian-kan iyo dadka Ethiopian-ka sheeganayo iyo dadka Soomaalida Ethiopian-ka laga saarayba in ay xooga saaraan baan kulli aan ku soo gabagabeynaya arrintaasi waxaana u wareejinayaa mikrofoonka Malika Malika halkaasan wax yar ku daro warun horta nin walba meesha uu joogo dekartideeda inuu la yimaado fiican waa sax weeye wadanka waa la wada leeyahay Soomaalinimaan ku wada joognaa yani qiyamka guud Soomaalinimadu waa mid naga go'an oo yani waajib nagu ah inaan ilaalino dhamaanteen laakiin de haddana hoos marka loo soo dhigo dhibaatadu way kala baaxad weyn tahay oo aad iyo aad bay u kala baaxad weyn tahay yani sida maanta hadda marka laga hadlayo gobolka City oo kale ama gobolka Liibaan oo kale ama gobolka Daawo oo kale inkasta oo meelo kale ay jiraan haddana waxa weeye gobolada kale waa laga qayliyaa oo laga hadlaa oo yani ilaa dawlad deegaanka baa yaa ka dhawaaqda oo tiraahda maya waxaas yani mar dambe inaan maqalno marno laakiin waxaad moodaa in weli jalxad lagu eedaamayo gobolka City waxa ka dhacaya hadday tahay magaalada Dirdaba iyo hadday tahay dhulkan disputed area-ka loo bixiyay maaragtaasay dadka masaakiinta lagu xasuuqo maaragtaasay cid war u hayso oo Ilaahay abuurtay aanay jirin khaasatan taasna waxaan leenahay oon u aanaynaynaa oon boqol ku aanaynaynaa ragga gobolka City jooga ama laga soo doorto gobolka City dawlad deegaanka Soomaalida fadhiya xildhibaan ha ahaadaan siyaasi ha ahaado مسؤول هير قرن هذا حتى معارض كمجالد الدردبة فضية كما هدلان قبل كستة وحقد هاي يأد بنقحون هاي إن نصاح هذا القادم يجو أو مسؤولين أو ماشي شوذا أو وحي دعاية عنده كو أركاية أو كسي جيدا يأد بنقحون هاي هذا نسأل سؤال هاي وايد على إن وحليس حسوسينا ليس حسوسينا محومة ويعني وحونا سن إن القطون بنا نقطنا أنا شخصي هانتي عدنا عنانا مايو عدنا ماركتاسي وحاسو كل جابي أوران مايو لكن واحد مودا ميل لو شقتغي إن الهين إناي تاي قبل كسيت وان أركينا إنتاسو tuula la kicinaya oo la barakicinaya oo dumar la xasuuqaya oo caruur la xasuuqaya oo dad waayeela geedo hoostooda iyo qorax hoos fadhiya raggii gobolkan iyo dadkan u dhashayna ay daawanayaan oo ay hadal iyo hugun ka dhiibanayaan macnahaasna anagu weli ma naafahan raggan siyaasiyiinta ee talabaad magaalada Dirdaba fadhiya ee aad moodid inuu safku ku yar dheeraaday waxaan leenahay walaalayaalow sharciga Ethiopia laydin kama badiyo aqoonina idin kuma yara bal hal mar intaad isku kacdaan idinku iska daaya isturtuurka iyo xiribka eega hoose oo bal dadkiina u tura oo hoos u soo dega oo fiiriya dadkiina waxay ku nool yihiin war dadkan waa dadka aad ku doonanaysiin kuraasta aad dhul inaad ku maamushiin aad rabtiin ودتك عاد عدك كرادينيسين دريتو ودتك عاد قيم كوغ لما مريسين وحصل الله حسوقه بيلان تويس باهيدو هايس سا ugu baabacsan meel walba iska daa wax kale si tuulooyinka agtiina jooga bal iska daa gobolka fogo tuulooyinka agtiina kuwii jooga waa booliis iyo makalakayaan niman leeyahay ay habeen iyo dharaar hortiina guryaha Soomaalida ku baaranaya guryihii aad deganaydeen baa la baaranaya aqoonta halka markay maraysana de aqoon la'aan baata sharafta halka markay maraysana sharaf la'aan baata waxoogaa in damiir la isku yeelo oo dadka bal hatta wax kale yaa loo qadan la wacdi geliyo oo la yiraahdo waa nahay waana salaamay hadalkan waa ka baxay wa salaamu calaykum
adaa ku haystee aniguna haddaan wax ku dartiilaaho anoo halkaas kasii amba qaadayo walaalaha inta ay afkaarta ay soo jeediyeen waxay u muuqataa haddaan halkii aan dhigay haddaan ka amba qaado waxaa cad waxaad arkaysaa waxaa cad dalkan iyo dadka ku nooli inay yihiin occupied territory baad moodaysaa nawaad maaha dal kamida maahan shacab dal kamida maaha waa dal occupied ah sida ma aragtay maxaa la oran jiray occupied territory Gaza meesha la yiraahdo iyo West Bank oo kale ayuu u dhigmaa gobolka Soomaalidu DDS maxaa ku tiridee waa waxaan ilaa hadda hadal hayno maamulka dawlad deegaanku awood nidaamka waa maamulku muxuu maamulaya dalkii iyo dadkiibuu maareynaya hadduuna awood lahayn marka wuxuu yahay wuxuu u shaqeeyo waxa weeyaan shaqo ma hayo xafiiska wala tagaya laakiin shaqo ma jirto shaqadu waxa weeyaan in bulshadii loo adeego Soomaa marka hadii bulshadii u adeegayn waxay mathalkoogu yahay waa sawirade waa sawir maaragtay guumaystaha matalaya ayaa marka dalkii ayaa maamulaya shacabka Soomaalidu ku nool yihiin waa saraakiisha ciidamada nidaamka caynkaas wuxuu cadeeyaa wuxuu ku tusayaa guumaystihii berigii colonizationka imika dal la guumaysto ma jiro adduunka amba oo wadan kale uu haysto wuxuu ku haysto ma jiro waxaan ahayn dawladda deegaanka Soomaalida ee imika ee Ethiopia aan ahayn ma jirto caalamka meel wadan kale amba dawlad kale ama ciidan uu guumaysto hadduunan occupied ahayn dalku waxay ahayd federaalku dawlad deegaanka Soomaalidu inay lahaato awood ay isku maamusho sida kuwa kale awood lamida midda ma aragtay maamulka ay leeyahay Oromia awood lamida inay yeelato sida maamulka dawlad deegaanka Tigreega iyo ka Amxaarada iyo kuwa kale lamidka iyo kan Anfarta oo hadda ka dhawaajinayno oo kuwa ugu liita kamida oo sagu laftigiisu awood leh inuu dalkiisa idna ayna ku diri karin ciidanna uuna maaragtay ku ugu cagajuglayn karin marka waxa weeyaan waxa anaga horta wacyi gelin weeyaan waxaan maaragtay meeshan uga hadlayno waa sidoo walaalkay waa bari sheegay cid farquma fiiqayna waxaan rabnaa dadkayaga iyo dalkeena iyo dadkayaga inaan idhaano war indhaha kala fura oo horta meeshaan dhex taagan tahay arag war ma dawlad baa tahay adigu bal isku fiirso muraayadda intaad isoo taagto waxa jira warayaad u shaqeysaa horta waa maamulkii waxaan ka hadlay hadduu madaxweynaha laga soo bilaabo ilaa iyo ka qabalaha kan maaragtay mas-uulka ka ah ayaad u shaqeysaa ma maamul baa tahay ina sharaftu waxay ku jirtaa maamul inaad tahay marka haddaad maamul ahayn sharaf ma lihid sharaftaada soo cesho baan leenahay sharaftaada soo cesho dadka hormoodu noqo cid kaa hor joogtan male tallaabaa ku xigta one step tallaabo yaa ka xigta inay dadkaagu ay maaragtay ay helaan xaquuqda iyo xaqa ay ku leeyihiin dalkan taas in aad maanta taariikhda ku gashaan waa fursad moogtaa ku soo maraysa fursadda maanta taariikh waxaa la yidhi war akaaha maaragtay waari mayside war akaahadho waxaa la sugayay markii wada xasuusnaa malanaya himilada ay shacabka Soomaalida dawlad deegaanka iyo Soomaalida meel kasta ku sugan tahay himilada lahayd markii uu dhacay dargigii uu dhacay maamulkii dargiga la shaqeynayna uu dhacay maamulkii ka dambeeyay oo kan hadda taagana waxa shacabku wax badan bay maaragtay filayeen moogta horumar ballaaran baa la filay laakiin ilaa hadda wax kana saacad ma jiraan aan u baahanahay in dib la isku maaragtay la isu noqdo shacabku iyo mas'uuliyiintu ay isu yimaadaan mas'uuliyiinta maamulka waxa weeyaan awoodoodu waa shacabka haddii ay hantaan ay u soo laabmaan ay u yimaadaan ay irahaan war maanta diyaar baan nahay
dalkiina diyaar mawtiina difaacatan horay waaba intay ka sugayaan mugta marka waxaan leenahay maanta fursaddaa inay ka faa'iidaystaan nidaamka maamulka ka jira dowlad deegaanka soomaalida waana runo waxa weeyaan hadalkaas walaalihiin ay soo sheegeen in goob walba cid walba amba maaragtay maxaa la odhan jiray gobol walba amba degmo walba inta ka soo jeeda inay ka hawlgasho in dadka ay maaragtay ay wacyigeliso ay indhaha u furto ay tusto u tilmaamto waxa ay ku sugan yihiin meesha ay ku sugan yihiin oo ah nacam mugdi inay ku jiraan oo haddii aana maanta laga bixin waa qarnigii 21 haddayna maanta laga bixin nacam sidee ku dhacday 21st century in dhalinta intaa leeg ee qarniga nool ay arki weydo hadday mas-uuliyiin tahay iyo hadday shacab caadiya tahay ay arki weydo u muuqan weydo maxaan ku rahay sida ay wax yihiin waa mustaxiil weeye marka intaasaan ku daray aad bad maasaiin waa adiga waxaan ku mahadcelinaynaa sida ay nagu soo dhaweyseen city sogaar waana ka bax waad mahadsantahay xuseen buux waxa weeyaan waxaa la yidhi toosnin laa u galgasho talo waa ku warkeeyaa maanta dhibaatadaa city ka taagan ee city ka socota haddaynan aqoon-yahanka iyo siyaasiga city hadduuna ka hadlin una oran waa dadkayaga waa dhulkayaga hadduuna oranin horta waxaa la yidhi de maxay cid kale kuwa hadli mayso anigu waxaan leeyahay waa maxay ahayde mucaarib iyo muxaafid baree cityo kuwa maxay ahayday dawladda hadda ku jira iyo kuwa maxay ahayday hadda dhowraya inay dawladda maxay ahayday ay isku soo sharaxaan mucaaridka imika sheeganayo war waxa weeyaan maxaabad ayaabad xakumaysiin ayaabad meel u fadhiisanaysiin ayaabad matalaysiin marba dadkiini haddii saa la inigu hooslaynayo dalba maxaa meelika dal ma leedihiin dal horta ma leedihiin baa ka horeysa maya dadka inay u hadlaan dadka sitay inay u hadlaan dadka sitay inay maxay ahayday dhibaatada lagu hayo ay ka hadlaan war waxa weeyaan nin maanta silka amxaarka magaalada qoondar nin soomaaliya haddii loo shaqo geeyo ninkaas soomaaliga waa laga dagaalamaa exactly waa laga dagaalamaa way ka dagaalamaan maxay ahayday amxaarku wuu ka dagaalamaa dhulka anigaa le sidee la iigu keeni inakuna dawladdeennii iyo administrationkii iyo meel kaste ayay xamasho kuu fadhidaa oy kugu maamulaysaa waa kilalkii soomaalida dhibaatada intaa lexiyakoo lagu hayo oo maxay ahayday aamusan tahay ayaa weliba dilmo lagugu daraya waar ka kaca dhulka ka kaca oo dadkiina u hadla siyaasiyiinta iyo maxay ahayday mucaaradka iyo dhalinyarta iyo dadka uqaasha waa dadkiina u hadla dadkiina haddaad u hadli weydaan meel ada u socotaa anigu garan maayo waana soo gebagabaynaynaa halkaasuu ku dhammaaday barnaamijkii aad baad u mahadsantihiin aqoon-yahan cumar waa beri iyo xuseen buur ilmaadare aad baad u mahadsantihiin cali waa beri cali kala geeye adigaan kugu soo tabinayaa makarafoonka barnaamij kale inoo soo xid wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maasha allah halkan waxaad kala socotaan waa radio barbaarta city soo gaadh waxaan aada ugu mahadnaqayaa maalika oo barnaamijkii la daadihinaysay iyo aqoon-yahan cumar waa beri iyo aqoon-yahan xuseen buux halkan aad kala socotaan waa radio barbaarta city soo gaadh oo aad kala socon doontaan ciwaanadiisa kala duwan youtube-ka iyo facebooka inta aan barnaamij lamid aan ku kulmi doono nabadgelyo iyo ammaan allah